xogayaha kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ee xisbiga mucaaradka ee UCID Mustafa Muuse Maxamed Burjabay oo si gaar ah ula hadlayay muuqbaahiyaha bulsho ayaa ku dheeraaday isbeddelka ku yimi wasaaradda kalluumaysiga tan iyo intii la isku daray labada wasaaradood ee xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga isagoo hoosta ka xariiqayna in wax badan oo ka tirsanaa wasaaradda kalluumaysiga ay meeshaba ka baxeen gudaheennii dhexe midba meel bay soo gaarsiinaysay laakiin tan maanta taagan ee uu madaxweynaha ka yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi meelaha aan oran karo way ugu hooseysaa waxa kamid ah kalluumaysiga waa kamid ah wasaaradii kalluumaysiga wuxuu intuu baabiyay ayuu hooskay madaxweynaha wasaaradii xoolaha wasaaradii kalluumaysiga meeshii way ka baxday waxa dominate karaysay waxa meeshii imika shaqayso wasaaradii xoolaha wasaaradda kalluumaysiga waxay lahayd afar waaxood oo waaweyn bay lahayd waxay lahayd qaybta loo yaqaan cilmi baarista waxay lahayd qaybta loo yaqaan quality controlka ama ay controlsha qaybtii xeebaha ay lahayd wasaaradii kalluumaysigu meeshii way ka baxday hal waax oo qura ayay ku soo ururtay shaqadii wasaaradda waxa qabta oo haya hay'adaha inta badan qabta hay'adahaasi toos iyaga wax u yara siisiya kalluumaysatadii waxay wasaaraddu inay policy cad ka yeelato sidii loo horumarin lahaa kalluumaysiga iyo kalluumaysatada Soomaaliland iyadoo mas'uuliyad ka saaran tahay inay samayso siyaasad lagu horumarinayo kalluumaysigeena iyo kalluumaysiga dalka bulshada xeebaha ku dhaqan oo aad ka u dambaysa dawladda ayaa ka mas'uula inay noloshooda iyo sidii loo horumarin lahaa ay xoog iska saarto madaxweynaha waxaan soo jeedin lahaa in wasaaradda kalluumaysiga uu sideedii u soo celiyo oo uu ka dhigo wasaarad madax bannaan oo iskeed u shaqaynaysa waxay kaabi lahayd haddii wasaaraddaas sidii loo soo celiyo wax soo saarka dalka qayb weyn bay ka qaadan lahayd waxay abuur lahayd shaqo abuur fara badan dhalinyar badan oo bilaa camal ah ayay camal u samayn lahayd dhaqaalihii dalka sare u qaadi lahayd oo qayb bay ka qaadan lahayd Mustafa Muuse Maxamed Burjabay xogayaha kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ee xisbiga mucaaradka ee UCID waxa uu geesta kale xukuumadda Soomaaliland ugu baaqay in rajo loo sameeyo ardayda dhamaysata barashada kalluumaysiga ee ka baxaya jaamacadaha kala duwan ee dalka kaloo aan soo jeedin lahaa ardayda ka soo baxday jaamacadda badda ee kalluumaysiga soo baratay meel ay u soo shaqo tagto ama ku xisaabtantaa ma jirto dawladdii hore Cali Buureed hayay ardayda ugu horeysa ka soo baxday jaamacadda badda afartankii ugu horeeyay iyadoo markaa la qaadanayo oo ay temporary ahaan si joogan ayaa la isku daray markii la isku daray oo yimi Xasan Maxamed Cali yimi afartankii arday suuqa lagu sii daayay waxa la yidhi shaqo ladin ma hayo ardayga xoolaha ka soo baxay wuxuu ku xisaabtanaa inuu tagayo wasaaradda xoolaha ardayga beeruhu wuxuu ku xisaabtanaa inuu tagayo wasaaradda beeraha tagayo laakiin ardayga kalluumaysiga ka soo baxay xageebo ku xisaabtamaya tagaya waxaynu u baahannahay intaana siyaasad adag laga yeesho in la dhiirigeliyo ardaydii baranaysay Maxamed Cabdi Qalile muuqbaahiyaha bulsho Hargeysa.